shirkan looga hadlayo socdaalka sharci darrada ah ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda IOM waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka socda wadamada Geeska Afrika. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Axmed Qeyb. waxaa sidoo kale ku wehelinaya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka iyo waliba barakacayaasha Mudane Axmed Nuur. kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb gala madaxda ugu sarreysa hay'adda socdaalka adduunka ee IOM iyadoo sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen madax kala duwan oo ka socota wadamada midowga Yurub iyo waliba qaybo kale oo ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay. ujeedada shirkani ayaa waxa ay ahayd sidii loo xadidi lahaa ama wax looga qaban lahaa dadka socdaalka sharci darrada ah oo iyagu dhibaato ku haya qaybo ka mid ah wadamada Yurub oo ay u tahriibaan iyo waliba sidii xal looga heli lahaa dhibaatooyinka ay dadkaasi ka cararaan. kulankan ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan iyadoo oo wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti Xasan Cumar Maxamed uu goobtaasi ka sheegay inay jiraan dad aad u badan oo halkani tahriib ahaan mararka qaarkood u mara kuwaas oo uu sheegay in iminka ay ka yar yihiin sidii hore dowladda Jabuutina ay tallaabo adag ka qaaday dadka ku socda socdaalka sharci darrada ah taageera arrintaasi. waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay wasiirka iskaashiga caalamiga ee dowladda Yemen oo isna sheegay in dowladdiisu ay iminka raadinayso sidii loo heli lahaa xal deganaansho ah. wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa asna waxa uu sheegay dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto in la xadido dhammaan socdaalada sharci darrada ah ee ka jira Soomaaliya. kulankani ayaa waxaa ka hadlay madaxda ugu sarreysa hay'addaasi waxayna tilmaameen in iminka ay caalamku ka go'an tahay sidii wax looga qaban lahaa dadka socdaalka sharci darrada ah ku socda ama tahriibka ah kuwaasoo laf ahaantooda dhibaato la kulma dhibaato adagna ku haya wadamada ay dadkaasi u tahriibaan. gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Mudane Axmed Nuur ayaa waxa uu ka warbixinayaa shirkan iyo ahmiyadda gaarka uu leeyahay. telefishinka qaranka SNTV waa mahadsantihiin. shirkani wuxuu ku saabsanaa dadkan qaxootiyada ku kala noqdo wadamada gobolka tahriibka ku taga ka yimaada wadamadan Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Geeska oo badanaa taga Yemen oo u sii gudba wadamada Carabta iyo Yurubka sidee arrintiisa wax looga qaban karaa. waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda caalamiga ee dadka tahriibka IOM-ta waxaana la abaabulayay boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Jabuuti oo shirka martigelisay wasiirkeedu arrimaha guduhuna uu jeerinka fadhiyay. waxaa ka soo qayb galay heer wasiiro wadamada gobolka oo Soomaaliya ay ka mid tahay. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ayaa wafdigeena hogaaminayay. Soomaaliya kaliya ma aha inay iyadu dadka tahriibayaasha tahay ee jidka loo marana waa tahay dalalka la yimaadana waa tahay. saddexda waji ee tahriibku leeyahayba Soomaaliya way ku sifowday. dad badan ayaa qaxootigeeda ah ayaa ka gudba badaha oo dhibaato badan ku qaba gobolka. Mikael Cabdirashiid Barre, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.